annagoo ka soconna gogashii madaxweynuhu dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudan Cabdiraxmaan oo gogashii Ceeri Gaabo uu dhigay waxaan uga mahadnaqaynaa gogasha uu madaxweynuhu dhigay ciidii ugu horeysay ajiibtay waxay ahayd beeshaasi saaka halkan nagu soo gaadhay bay ahayd Suldaan Siciid wafdiga uu soo diray gogol xaadka gudida wafdigan soo gaadhay waa gogol xaadkii sida ay sheegeen suldaanku soo diray boqorku hogaaminayo waxa weeye waa kulan kooban oo ah inay gudidaasi gogol xaadka wafdiga gogol xaadka inaynu soo dhaweyno oo gudidii madaxweynaha iyo madax dhaqameedka reer Ceeri Gaabo inay iyaguna soo dhaweeyaan oo ay maartay xaqada jirta waxa weeye Ceeri Gaabo laguma kala maqna oo maanta wafdiga halkan yimi macnaheedu ma aha inay reerkani uu ka maqnaa magaalada way joogaano ma u maleynaysid in aqal ka maqan yahay qof ka maqan yahay laakiin haddana maadaama xaaladii ay la soo diristay degmada Ceeri Gaabo xaaladii in la dhameeyo gogosha uu madaxweynuhu dhigay insha Allah taala waa raggii hormuudka u ahaa iyagu markii uu gogosha uu madaxweynuhu dhigayna ajiibay weeye marka uu horeysa waxaynu mahadnaqaynaa Ilaahiina abuuray ee halka isugu keenay maanta oo inoo suurto geliyay inaynu isugu nimaadno nabadii madaxweyne Cabdiraxmaan magaalada Ceeri Gaabo dhigay ilaahayna way inoo suurto geliyay haddii cidi maqmaqantayna insha Allah iyana waa ku soo biiri kartaa aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa in kastoo de magaaladayadii tahay daarihii baanu ka maqnaynaa magaaladu waa magaaladayadii maantana waa u nimi haddii wax dhaceen waa wax xun Ilaahay looma nisbeeye waa wax shaydaan ka adeegi insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan si nabada dadkii isugu soo noqdo insha Allah anagu waxaanu nahay gudidii horu dhaca oo ahayd ergadii kalena waa dambaysaa nabadda waa la ballan qaaday horaanu anagu ugu dhawaaqnay haddana diyaar baanu u nahay xilka weynina wuxuu saaran yahay dawladda iyadaa roolka weyn ku leh dadka kalena de kolley wax waa ku leeyihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cidda dawladda iyo maamulka